الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شن طبنادي كتاب كان تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. waxaan kusoo jirnay fasalkii khitaanka oo ah guditaanka gudniinka ayaan kusoo jirnay. sheekhu wuxuu yidhi faslun في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان، يعني انت laga goynayo horay baynu u sheegno waa inay ku bilownay wiilashana waxaan niri waa maqaarka yar oo qaybta hore ku daboolka u ah, gabdhahana waa hilibka yar oo iyagana xubinka taranka ayaa wax laga goynayaa. qaybta marka la goynayo dumarka si gaar ah waxaa sunno ah in khaatina waa midda qofka guditaanka sameeya, gabdhaha gudaya aynan goynin wax badan bal wax yar la gooyo, sidii xadiidka catiya radiallahu canha rasuulku sala allahu caley wasalam oo gabdhaha iyadoo oo gudi jirtay uu la dardaarmay oo ku yidhi markaad gudayso ha goynin falaa tunhiki, yani ha dhammaynin, sidaasoo kale xubinka ha wada jarin oo kale. maxaa jira فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل مكسفي رسولك صلى الله عليه وسلم علذي inaan xubinkaa la goynin baa gabadhana u dheef ahaan u badan oo ay dee ka helaysaa nolosheedii iyo ladadeedii iyo ninka la joogiisii, ninkana sidaasaa uu jecel yahay, marka xubinkaa ha wada goynin buu yidhi. riwaayinka qaar wuxuu yidhi wax yar uun ursi birta oo maaragtay wax yar uun oo aada u yar ha laga jaro. fasalka isla qeybtan xikmadaasina rag iyo dumarkaba way u wada taalaa oo in la gudo labadaba rag iyo dumarba way ku wada jirtaa. rasuulka xadiidkiisi isagoo laga qaadan ida iltaqa alkhitaanaani wajaba alghusl, labada khitaan labada gudniin hadday kulmaan waxaa waajib ah in la qabaysto ayaa waajib ah. imaamu axmed binu xambal baa waxaa la weydiiyey raximahullah khitaani ilmar-a, dumarka guditaankooda, wuxuu yihi khitaanku waa sunne. ibnulqayim wuxuu leeyahay khilaaf kuma jiro inuu sunno u yahay dumarka oo shay aada u wanaagsan uu yihi. waxaa intaa la radinayaa qolyo dhahaya la taaban maayo ayaa la radinayaa. xubinkan jaritaankiisana tahaaradii iyo salaadii iyo dabiixadii gowricii iyo shahaadadii iyo waxyaabo badan ayaa ku jira, inkastoo oo aynan mamnuuc ayna tusinaynin oo ijtihaadaad ay yihiin bale inta ugu badan. waxyaabo waxaa jira musqitaad ah oo waajibkaa rida ayaa jira, yani ragga oo kale waxaan niri waa waajib in la gudo, marka laakiin waajibka wax ridi karaa jira, mathalan inuusanba lahayn wiilku xubinkan taranka qeybtan daboolba uusan lahayn. waxay leeyihin culimadu sida qofka aan timo lahayn xajka iyo cumrada hala xiira la dhihi maayo, timaba male, qof oo madaxiisa dhan uu wada deeran yahay oo bidaartii dhammaysay maxaa la xiiraa? qaar baa yidhi mindida hala korkor mariyo, sakiinta hala dul mariyo, marka wax la mariyo waxba faa-iido kuma sugna wey. qeybta kale dacfulmawluud baa la yidhaahdaayo, hadduu ilmuhu isagu naftiisu mar waxaa jiro aada u tabaryar yahay, bilo yaroo kaleu ku dhashay, maba awoodi kara in wax la gooyo ama hadda la sameeyo, isagana waxba maaragtay in la sameeyo ma ah. marka waxaa kamid a la yidhahda geeridii oo kaleetu qofku dhinto isagoon gudnayn saacadda in la gooyo waxba maxaa jira annahu yubcathu yowma alqiyaama isaga oo qaba buuryadiisii iyo qofku uu qabo xubinkiisii taranka ayaa hayra makhtuuna lasoo saari doona. ayib, su-aal masale kale oo muhiimadeeda le baa jirto oo rasuulka sala allahu alay wasalam naftiisu ibnuqayim ka hadlay oo ma gudnaa rasuulka sideedaba yaa guday. 3 qowl baa la isagu khilaafay. qowl wuxuu laleeyahay rasuulka isagoo gudan ayuu dhashay, arintaasina saxiix ma aha. qolada kale waxay leeyihiin jibriil baa markuu qalayay, ilaan rasuulka waa la jeexay oo marba laga soo saaray waxyaabo calooshiisa iyo beerkii qalbigiisaba la jeexay buu guday baa le, taasina wax saxiixa looma hayo. wejka saddexaad waxay leeyihiin awoowi cabdulmutalib ayaa maalintuu 7 jiray guday, marka maxamedna magaciisa wuu u bixiyey,
carabtuna caadadeedu sidaasay ahayd in ilmahooda ay ku sameeyaan. ibnulqayim raximahullah wuxuu leeyahay sida ibnulcadiim kamaaludiin ibnucadiim nin la yidhaahdo uu sheegayo sidaasaa sawaabka u dhow waaqicana u dhow. wahada alqowlu laysa cala yaqiin, naftiisu ma aha yaqiin laakiin huwa alaqrab wey, waa sida un ugu dhow. wallahu aclam. xikmada ku jirta allatii liajliha yucaadu banu aadam, maalinta in la soo celin doono iyaga oo qaba, qof waliba uu qabo maaragtay xubinkiisii taranka oo waxba laga jir, sida qiyaamada in la keeni doono inagoo oon gudnayn. maxaa ku sugan? allah wuxuu leeya yowma natwi الsamaaa ka طayi sijili lilkutubi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduh wacdan calayna ina kunaa faaciliin. marka taas waxaa leeyahay sababtaa dadka iyo xadiidka saxiix ahaa oo maalinta qiyaamo waa dadka waa la keeni doonaa, yubcathuuna xufaatan curaatan gurleh, yacni siday ku dhasheen baa lagu soo celin doonaa, iyagoo kabala, iyagoo qaqaawan, iyagoo burye qabkoodii abaa dadka la keeni doonaa. taasina waa min tamaami wacdihi, ilaahay yaboohiisa dhammaystirkeeda in la soo celiyo iyagoo xaaladii ay ku dhasheen dadku oo joogo acdaadoodii oo dhammaystiran la keeno. taasina waxaa weeye in adduunka lagu gudo waa takmiilu tahaarada ayaa ku wanaagsanaanaysa, kaadidiina la iska hagaajiyo. laakiin ahlu jannuhu dee mana kaadiyaan, xagga dambena waxba kama yimaado. marka sidaa istimraar